kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybtii 250aad ee barnaamijka tubta nabadda oo aan toddobaadkan mar kale ku eegi doono dadaalada loogu jiro in haweenka Soomaaliyeed ay kuraasta baarlamaanka Soomaaliyeed ka helaan qoondada 30% ah ee loo asteeyay iyadoo hanaanka doorashada dalku uu wali soconayo. doorashada xubnaha aqalka sare ee golaha baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa hadda waxa ay maraysaa heer gabagaba ah iyadoo inta badan la doortay xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxaana taasi ay muujinaysaa in maalmaha soo socda ee fooda nagu soo haya la guda gali doono doorashada xubnaha xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana muuqata in haweenku aysan buuxin karin kuraasta ay tahay inay ku yeeshaan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. haddaba si aan faahfaahin dheeri ah uga helno muhiimadda ay leedahay arrintan ayaan waxaan wareysi kala yeelanay Ifraax Axmed oo ah aasaasaha hay'adda Ifraax Foundation oo ah hay'ad ka shaqeysa arrimaha horumarinta iyo awoodsiinta haweenka Soomaaliyeed waxaana aan ugu horreyn weydiinay bal waxa ay ku tilmaami lahayd muhiimadda ay haweenka u leedahay kamid ahaanshaha golayaasha go'aan gaarista siyaasadda dalka. runtii haweenka Soomaaliyeed waxaan wada ognahay in ay tahay laf dhabarka bulshada waxaan ognahay Soomaaliya 30 sano la soo dhaafay dhibaatooyin badan iyo dagaalo ay soo martay dadkii markaa nabad jeclaa ama wax walba sameynayna waxay ahayn haweenka saa ognahay markii oo Soomaaliya dib dhiska lagu sameynay sida shirka carto kale ragga markay isdagaalaan miiska ka kala kacaan haweenka dadka isku keeni jiray isku soo celinay taas waxay cadeynaysaa haweenka ogaashaha iyo meesha dhibaatada ka jirto iyo meesha matqaana nabadda ka jirto ay og yihiin haweenka hadii ay matqaana ay ku jiri lahaayeen markaas dhinaca siyaasadda wax badan ay bedeli lahaayeen marka waxay muhiim ugu tahay sida wada ognahay shirka carto oo kaliya tusaale loo qaadanayo in markii ay ragga kala isdagaalaan ay kala kacaan ay miiska ka kacaan haweenka dhiirigelin u sameynay oo guubaabinay si ay siyaasadda ugu soo noqdaan. Ifraax maxay muhiim ugu tahay haweenku inay xaqiijiyaan helista qoondada haweenka ee 30% ah? waxay muhiim ugu tahay sida ognahay Soomaaliya waxa siyaasadda loo kala qaybsadaa wax la yiraahdo 4.5 markii 4.5 siyaasad lagu kala qaybsanayo qabiil walbo amba dad walba meesha ka soo jeedo oo matqaana markaas ogolaanaynin in gabadha ay xil u qabato amba baarlamaanka ahaata amba xilalka laha qabato marka saas darteeda aqabad ugu tahay in qofkaas dumarka loo soo xulo inay kamid noqoto siyaasadda marka saas darteeda ayaa waxay aad muhiim ugu tahay in la xaqiijiyo in haweenka ay kamid noqdaan maxaa yeelay waxa la dhahay haweenka la siiyo 30% iyadoo la dhahay 30% hala siiyo oo isla markaas ay jufo walba ay raadinayso qof rag inay soo saaraan waxa dhumayo xaqiijintii inay haweenka helaan 30 30% inay haweenka la siiyo waxay muhiim ugu tahay in haweenka ay kamid noqdaan ogaashaha amba la socodka dhinaca sharciyada maadaama Soomaaliya dadka ugu badan ay haween yihiin dadka la dhibaateeyana markii laga hadlayo dhinaca xuquuqda aadanaha waa dumarka marka saas darteeda waa muhiimad aad weyn in la xaqiijiyo inay haweenka helaan 30%. maxay muhiim u tahay in la taageero haweenka hamiga siyaasadeed u leh qabashada jagooyinka muhiimka ah? waxay muhiim ugu tahay sawada ognahay waxaan leenahay dumar badan oo matqaana hami u leh inay siyaasadda kamid noqdaan tusaale ahaan waxay soo sharaxday gabar Soomaaliyeed oo ahayd gabadhii ugu horeysay adduunkana qabsatay qurbi joog ah markaas ku dhawaaqday inay u taagan tahay xilka madaxweynenimada hadii gabadhaas Soomaaliyeed la taageeri lahaa garab buuxa la siin lahaa waxa suurtagal ahaan lahayd inay noqoto qof hoggaan dalkan u ah marka saas darteeda maadaama ay dhicin waxa muhiim ah in haweenkii garab lagu siiyo inay kamid noqdaan siyaasadda waxaan qabnaa haween badan oo aad matqaana bulshada ugu dhex muuqdo oo active ah oo matqaana dagaalamo oo matqaana bulshada ka dhex muuqdo dhinaca siyaasadda marka haween badan aan qabnaa oo ma aragtay hami aan hiigsi u leh inay dalkan wax ka bedelaan oo helin janiska
haweenka Soomaaliyeed marka maxay ku kordhin karaan siyaasadda iyo go'aan gaarista dalka? dhinaca hoggaanka waxay kusoo kordhinayaan haweenka haddii la siiyo waqti ay ku kala qabtaan xilalka kala duwan ama kan baarlamaanka ahaado, in la helo sharciyada badan ee maaragtay meesha iska yaallo aan la ansixinin loogu hortegayo dhibaatada haweenka, in sharciyadaas ay hirgalaan, in nabadii ay sii kororto, in mataqaanaa ay bulshadii ay nafisto oo lagu nafiso, in haween ay mataqaanaa ay qayb ka tahay dhismaha dalki, maadaama haweenka ay yihiin dadka nabadda jecel ee nabadda sameeya. aad bay u mahadsan tahay. taasna dhegeystayaal waxa ay ahayd Ifraax Axmed oo ah aasaasaha hay-adda Ifraax Foundation oo ah hay-ad ka shaqeysa awoodsiinta haweenka Soomaaliyeed. welina dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka Tubta Nabadda, waxaana inoo soo socda qaybihii kale. hase yeeshee aan markan u gudubno Hodan Cali oo iyaduna wax ka aasaastay ururka haweenka ee Lead Now, oo ah urur si weyn uga shaqeeya hubinta sidii haweenku ay qayb uga noqon lahaayeen hannaanka siyaasadeed ee dalka, iyo sidoo kale helista aqoontada haweenka iyo in haweenka Soomaaliyeed ay noqdaan kuwo isku xiran si ay ugu guuleystaan hadafkooda. waxaana aan ugu horreyn weydiinay bal waxa ay tahay tayada gaarka ah ee haweenka Soomaaliyeed ay leeyihiin, faa'iido muhiim ahna u ah danta dadka Soomaaliyeed. horta haddii la fiiriyo historically dumarka Soomaaliyeed waxay weligood ka shaqeynayeen qarannimada Soomaaliyeed, difaaca waddankaaniti iyo kobcinta dhaqaalaha waddankan. of course waa hooyooyin, waa dumar, waa marna jiilka maxaa la dhahaye markaan generationkan iyo generation ka dambeeya ka shaqeynaya, laakiin muhiimadda waxay tahay dumarka waad ogta adiga xataa looma ogola in ay door sax ay ka yeeshaan arrimaha siyaasadda iyo wixii la xiriiro dowlad dhisida Soomaaliya. dhibaatooyinkii civil war markay dhaceen waa ognahay dumarka Soomaalida lagu faqsaday oo waddanka ama dhaqaale ha noqdo ama dejin ha noqoto ama ha ka shaqeeyaan waana iyo dib u heshiisiin. waan ognahay doorka saxda ay ka dheereen. marka kolley qof kasta oo Soomaali ah ama rag ama dumar wuu garsan yahay, wuuna garwaaqsan yahay inay dumarka ay yihiin quote laf dhabarka shacabka. laakiin at the same time markii la raadinayo in cod iyo maxaa la dhahay representation ay yeeshaan fursad lama siiyo. marka taas waxaan rabnaa inaan iswaafajino baahida loo qabo dumarka inay hoggaanka waddanka ay ka qayb galaan, waddanka u baahan, shacabka u baahan. maxay hay-adda Lead Now sameynaysaa si ay u taageerto haweenka leh hamiga siyaasadeed iyo in la xalliyo aragtiyada aan wanaagsanayn ee ka dhex aloosan haweenka siyaasiyiinta ah? horta muhiimadda Lead Now waxay ahayd in la helo platform oo dumarka isugu yimaadaan oo laga shaqeeyo dardargelinta haweenka Soomaaliyeed sida ay u heli lahaayeen xaqa dowlad dhiska iyo inay helaan representation governance structure-ka iyo siyaasadda iyo waxaas inay qayb galaan. tan kalena waxay tahay in la dhiso tayada dumarka hamiga kale dhinaca siyaasadda iyo guud ahaanbo maxaa la dhahay leadership roles oo kala duwan. also in la fiiriyo caqabooyinka dumarka oo hortaagan markii ay rabaan in ay raadsadaan ama kursi siyaasadeed ama kursi any jago oo waddankaaniti taalo. marka waxyaabo badanaan hadda aan aragnay in the last maxaa la dhahay sanadka hadda lasoo dhaafay. marka waxaan ka shaqeynaa onlineta iyo dardargelinta in la xaqiijiyo qoondada. waxyaabaha aan rabno inaan fahansiino oo trainadii waxaan aan ka hadlayo waa in la dareensiiyaa waddanka hadda 4.5 wax lagu qaybsado waa waddan oo siyaasadiisa qabiil ku dhisan yahay. haddii aad fiirisane dumarka iyagoo qabiil ka dhashtay qabiilkiina kuma tixgelinayo. haddii aad si kale u fiiriso gabar haddii tartamaysa haddii nin qabiilkeeda ahayn uu qabo waa lagu carqaladeynayaa. marka dumarka inay fahmaan horta hore ayaga qabiilkooda inaysan kaliya aysan ku ekaanin inay u arkaan dantooda guud
inay ku jirto promotion of women adiga hataa gafaysa xataa gabar kale inaad aad promote garayso. maxaad u sheegi lahayd dadka Soomaaliyeed ee aan aaminsanayn muhiimadda iyo doorka haweenka Soomaaliyeed ay ka ciyaari karaan hanaanka siyaasadda Soomaaliya? horta waxaan subinay leadna ahaan research oo gobolada dhan laga qabtay magaalada Muqdisho laga qabtay oo la fiirinayo sababaha kala duwan haddii ay jiraan sababo oo hortaagan gabdhaha inay ka qayb galaan siyaasadda. waxyaabaha oo dadku waxay aaminsan yihiin gabdhaha inay badankood dhaqanka uu diidan yahay. dhaqanka ma diidano laakiin waxaa kasoo horjeedo siyaasad waa tartan. siyaasad waa about ragga gabdhaha la tartamayo ayagoo isticmaalaya dhaqanka iyo diinta ay maxaa la dhahay gabdhaha block gareeyaan. marka gabdhaha haddii boqolkiiba 30 loo xiro it means boqolkiiba 30 ragga aan meesha ka baxeen. research aan subinay waxaan aragnay in aysan ahayn really dhaqanka kasoo horjeedin inay tahay ragga interestkooda inay aysan ku jirin inay gabar booskaasi ay hesho. markii adeennada day waxay noqonayaan displaced ka noqonayaan siyaasadda. marka jawiga iyo time kale wuu isbedelooyaa. dhalinyarada iyo wadankan hadda waa boqolkiiba 70 dhalinyaro aad bay u mahadsan tahay. taasina dhegeystayaal waxay ahayd Hodan Cali oo wax ka aasaastay ururka haweenka ee Lead Now oo ah urur si weyn ugu ololeeya sida haweenku ay qayb uga noqon lahaayeen hanaanka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo sidii loo ilaalin lahaa qoondada haweenka ee boqolkiiba 30 ah. markana dhegeystayaal waa dhinacii wararka barnaamijka. wakiilo ka socday hay'adda UNFPA ayaa booqday xeryaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah ee magaalada Qansax Dheere ee gobolka Bay. ujeedada booqashada ee xubnaha wafdigan ayaa waxay ahayd sidii loo qiimeyn lahaa xaaladda nololeed ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah ee halkaasi ku sugan iyo sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha nololeed ee dadkaas haysta gaar ahaan haweenka barakacayaasha ah ee ku nool halkaasi. wasiirka wasaaradda arrimaha bani'aadanimada ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye oo ay la socdaan xubno ka tirsan hay'adaha qaramada midoobay ayaa socdaal ku hurgalid xaaladda bani'aadanimo ku tagay magaalada Buulaburde ee gobolka Hiiraan halkaas oo la sheegay inay ka jirto xaalado adag oo dhanka bani'aadanimada ah oo saameyn ku yeelatay dadka ku dhaqan halkaasi. waa tahay dhegeystayaal markana anagoo soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena aan wada dhageysano hees cusub oo hadda uun dabka laga soo dejiyey. waxaa heestan si wada jir ah ugu luuqeynaya fanaaniinta kale ah Caashakiin, Saadiya Sharaf iyo Ayaan Wadani. waxaana muhiimadda heestan ay tahay sida weyn ee loogu baahan yahay in la xushmeeyo xuquuqda haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda iyo talada dalka Soomaaliya.
waa tahay dhageystayaal, waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen heeskaasi macaan. waxaana intaasna ugu dhammaaday barnaamijkeena tubta nabadda oo ay maanta mar kale halkan idinkala socodsiinayeen Cali Maxamed Guutaale iyo anigoo ah Fadxi Maxamed Axmed. fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiina adinkoo noogu soo hagaajin kara barta aan ku leenahay Facebook oo ciwaankeenuna yahay tubta nabadda. hase yeeshee waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii u dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada, adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan.